السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena ogaal cusub. dalka Kuuriyada Waqooyi sidaan wada ognahay waa xabsi weyn oo kale sababtoo ah kama jirta gudihiisa xorriyadda shakhsigu. tusaale ahaan waxa ku qasaba qofka jooga waddankaasi inuu u jarto timaha dhowr qaab oo kaliya oo ay soo dejisay dawladdu. internet waxa loo yaqaan kama jira gudaha waddanka waa isticmaali kara muwaadiniintu iyo waliba waxyaabo kale oo badan oo ka jira gudaha waddankaas oo ka qaadaya qofka xorriyadda. laakiin xabsiga weyn ee waddanka waxa ku sii dhex yaala xabsiyo yaryar oo lagu xidho dadka ku xadgudba shuruucda waddanka kuwaas oo aad loo ilaaliyo oo ay adag tahay in ciddii margasha ay ka soo baxda gudahooda. waxaana laga yaabaa inaad weligaa maqal qof ka baxsaday xabsi ku yaala gudaha Kuuriyada Waqooyi sababtoo ah haddii baad ku guulaysatay inaad ka soo baxsato xabsigaas halkee ayaad tegaysaa waxaad gudaha u galaysaa uun xabsi kale oo weyn sababtoo ah waddanka gebigiisa ayaaba ah xabsi. haddii lagu qabto adoo ka baxsaday xabsigana dabcan masiirkaaga keliya wuxuu noqonayaa xukun dila. laakiin muuqaalkeena maanta waxaan kula wadaagi doonaa qisada nin lagu magacaabo Shin Dong maxbuuskii Kuuriyaanka ahaa ee kaliya ee awooday inuu ka baxsado mid ka mid ah xabsiyada ku yaala dalka Kuuriyada Waqooyi. Shin Dong wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka xabsiyada ku galay bilaa sabab iyo bilaa dambi sababtoo wuxuu ku dhex dhashay xabsiga dhexdiisa gaar ahaan xabsi aad u halis oo lagu magacaabo Zone 14 oo ku yaala dalka Kuuriyada Waqooyi. qaar badan oo ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiyada ku yaala dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sababta ay ku xiran yihiin waxay tahay kaliya sababta hooyooyinkood. sababta hooyooyinkooda ayaa la soo xiray halkaasina ku dhex dhaleen oo carruurtoodina sidaas ay kaga mid noqdeen maxaabiista. carruurtan ku dhex dhalata halkan ilaa maalinta ay garaasadaan waxay ku garaasadaan dhibka iyo shaqooyinka adag ee loogu diray xabsiga dhexdiisa iyo jirdilka loogu dhex geysanayo halkaas. ninka lagu magacaabo Shin hooyadii waxa lagu soo xiray eedayn siyaasadeed gaar ahaan waxay ka mid ahayd dadka mucaaradka ku ahaa qoyska xukuma waddanka. dabcan sida caadadana gudaha waddankaas haddii uu qofku dambi galo kaliya lama xidhayo isaga laakiin waxa la xidhayaa oo xabsiga la geenayaa dhammaan qoyskiisii. sidaa darteedna waxa la xidhay Shin hooyadii aabihii iyo dhammaan qoyskoodii oo dhan. carruurnimadii Shin waxay ahayd mid ay ka buuxda hirdan iyo kala dheerayn loo kala dheeraynayo wax walba xitaa waxay u kala dheerayn jireen waxa la cunayo sababtoo ah xabsiga dhexdiisa laguma hayn cunto wanaagsan qof walbaana wuxuu ka boobaya oo ka ridanaya cuntada qofka kale. sidaa darteedna Shin iyo walaaladii iyo hooyadiiba may ahayn dad qoys oo islaashanaya ee waxay ahaayeen dad colo oo kala qaadaya kala boobayana wax walba. wuxuu sheegay Shin in xabsiga dhexdiisa wax lagu bari jiray waxa kaliya la bari jirayna waxa waddanka Kuuriyada Waqooyi iyo qoyska madaxda bas. dabcan iskuuladan wax lagu bari jirayna waxay ahaayeen qaar ay aad u adag yihiin xeerarkooda iyo shuruucdoodu. ilaa uu gaadhay Shin maalin maalmaha ka mid ah uu arkay gabadh yar oo ka mid ahayd maxaabiistii oo ka xadaysa mid ka mid ah macallimiintii iskuulka wax ku baraysay cunto. wuxuuna sheegay inay ahaayeen gabadh yareed qaar ku qaraacaya ficilkaas ay samaysay oo dilaya ilaa ay ka dhimatay. arrinkana dabcan wuxuu ku dhacay oo lagu sameeyay Shin hortiisa mar walbana wuxuu ahaa ilaa yaraantiisii mid si joogta ula macaamilo xaaladahan oo kale iyadoo aanay naftiisuna ka maqnayn oo si joogta ula kulmi jiray qaraacista iyo jirdilka loogu dhex geysan jiray halkaas haddii uu falo khalad yar oo aad u yar. wuxuu sheegay Shin in maalin maalmaha ka mid ah si aan ku talagal ahayn uu jabiyey qalabkii uu wax ku talayay kadibna maxaad u malaynaysaa inay ku sameeyeen way soo qabteen kadibna waxay ka gooyeen far ka mid ah farihiisii ilaa imikana mid ka mid ah farihiisa ayaa bargo'an yihiin. si kastaba haatee isku soo duuduuba gudaha xabsigan waxaa ka jiray dhibaatooyin aad u badan haddiiba aad mar gudihiisa gashana 99.9 kama soo bixi doontid waxaanad ku dhammaysan doontaa noloshaada gudihiisa adigoo ka shaqaynaya shaqooyinkaas aadka u adag. Shinna sidaan hore usoo sheegnay wuxuu ahaa mid ku dhashay xabsigan dhexdiisa dhinacna aan u dhaafin weligii laakiin Shin hooyadii waxaa lahayd sheeko ka duwan midaas riyadeeduna mar walba waxay ahayd inay mar uun ka baxdo xabsigan sababtoo iyadu waxay ku soo noolaatay nolosha dibadda waxayna jeclaysanaysay inay ku laabato nolosheedii hore ee xorka ahayd. maalin maalmaha ka mid ah Shin wuxuu soo galay hooyadii iyo walaalkiisii ka weynaa oo ka wada sheekaysanaya sidii ay uga baxsan lahaayeen xabsigan. dabcan Shin uu dhageystay hadalkoodii wuxuuna ka xanaaqay siday kaligood u qorsheynayaan baxsadka isagoo aanay ku darin oo aanu la socon isagu. sidaa darteedna wuu fikiray wuxuuna aad uga fikiray wixii uu ka yeeli lahaa waxaan uu arkay ugu dambeynna waxaa ku soo dhacday fikrad aan wanaagsaneyn. wuxuu go'aansaday maalintii labaad Shin inuu aaday iskuulkiisii si uu uga soo ashkateeyay oo uga soo warramo arrinkii uu xalay ka maqlay hooyadii iyo walaalkii macallimiintiisa. dabcan maadaama nolosha xabsigu ay ahayd mid aad u adag maamulka xabsigu ciddii soo sheegtay arrin muhiim waxay siin jireen oo ay abaalmarin uga dhigi jireen inay siiyaan cunto wanaagsan iyo meel wanaagsan oo u seexdo. sidaa darteed inuu go'aansaday Shin inuu uga soo warramo arrinkan macallimiintiisa wuxuuna u sheegay xogtii uu hayay mid ka mid ah saraakiishii xabsiga laakiin askarigaasi wuxuu ka qaaday Shin macluumaadkii wuxuuna u sheegay maamulkii sare ee xabsiga isagoo iska dhigay mid ka helay xogtan oo aanu u soo sheegin Shin. sidaa darteedna waxaa lagu wada bilaabay dhammaan qoyskoodii qaraacistii iyo jirdilkii iyadoo Shinna loo qaaday meel kale oo lagu soo ciqaabo laguna soo baadho waxaana la dhex dhigay meel shabaga oo aad u yar wuxuuna sheegay Shin inuu ku dhex jiray bilow lagu dhex ciqaabiyay halkaas iyadoo ugu dambeynna la ogaaday in isagu aanu ku lug lahayn baxsadkan oo qoyskiisu ay qorsheynayeen.
bila kadibna waxa lagu soo celiyay halkii uu ku noolaa markii hore ee Zone 14 laakiin wuxuu la kulmay markii uu sidaas u yimi hooyadii iyo walaalkii oo la soo fadhiisiyay tiirka loona diyaariyay in la dilo oo lagu filiyo xukun dil ah hooyadii iyo walaalkiina waxa loo dilay inuu isagoo ashkatiyay oo wargeliyay waxay ku tashanayeen waxaana lagu soo celiyay meeshii uu ku noolaa iyo meeshii uu ka shaqayn jiray maalin maalmaha ka midana isagoo ka shaqaynaya meeshiisii ayaa waxay isku barteen halkaas nin lagu magacaabayay Barak laakiin farqiga u dhaxeeyay isaga iyo Barak wuxuu ahaa Barak kuma dhaxdhalan xabsiga dhexdiisa wuxuuna ahaa mid ku soo noolaaday nolosha xorriyadda wuxuuna hore u ahaa shaqaale u shaqaynayay dawladda Kuuriyada Waqooyi laakiin wuxuu sameeyay arrin khiyaano u arkay sidaas ayana lagu soo xidhay oo lagu keenay xabsiga ninkana wuxuu ahaa mid mar walba uga sheekeeya Shin waxyaabaha ka jira dibadda xabsiga iyo xorriyadda taala halkaas iyo cuntooyinka wanaagsan iyo wax kasta oo wanaagsan oo ka jira xabsigan dibaddiisa saadarteedna marka ay ka badbateen waxaan uga sheekeynayo ugu dambeyn Shin wuxuu go'aansaday inuu ka baxsado xabsigan uu soo arko waxaan looga sheekeynayo saadarteedna waxay go'aansadeen inay midoobaan Shin iyo Barak oo ay sameeyaan qorshe ay kaga baxsan lahaayeen xabsigan maalin ka mid ah subaxyadii taariikhdu ahay sanadkii 2005 iyadoo subax hore la joogo oo ciidamadii iyo ilaaladiina ay ku hawlan yihiin kala habaynta maxaabiista iyo shaqooyinka loo dirayo sidoo kalena waqtigaasi wuxuu ku beegnaa waqtiga ay isbedelayeen ilaaladii habeenka iyo maalintu ayaa wuxuu arkay Barak inay halkaas fursad ka bannaan tahay wuxuuna go'aansaday inay ka baxaan oo ay ka boodaan darbiga xabsiga laakiin dabcan darbigan xabsiga wuxuu ahaa mid ay ku wareegsan yihiin biro iyo taarar waaweyn sidoo kalena wuxuu ahaa mid meel walba taabata ay koronto ku qabsanayso ay ku dilayso laakiin Barak wuxuu ku adkaystay inuu koro darbiga oo aanu eegin halista uu kala kulmayo dabcan wuuna koray sidaasna waxa ku qabsatay oo ku dhigtay korontadii ilaa uu ka dhimanayay Shinna wuxuu ahaa mid taagan gadaashiisa oo arkaya waxa dhacaya oo dhan haddii uu dib laabto dabcan waxa la ogaanayaa inuu la socday sidaas darteedisna waxa lagu xukumayaa xukun dila haddii uu salaahda ka bood korontadana sida saaxiibkii oo kale ay ku dhagaysaa oo dhimanaya saadarteedna wuxuu go'aansaday inuu u adeegsado meydkii saaxiibkii Barak oo ka dhigta buunda oo ku dhaafo korontada sidaas ayuu sameeyay wuxuu iskaga xigsiiyay korontadii meydkii Barak wuxuuna koray deerkii ilaa uu ka dhaafay oo dhinaca kale u dhaafay darbigii dabcan meesha maadaama ay korontadeedu aad u badnayd waxa soo gaadhay isna dhaawacyo laakiin wuxuu ku guuleystay inuu gaadho xabsiga dibaddiisii markii uu dhaafay xabsigii darbigiisina wuxuu ka helay guri meel u dhow ku yaala xabsigii oo cidlaah gudihiisana aan cidna joogin nasiib wanaagna wuxuu ka dhaxlay gurigaas dhexdiisii dareyska ciidanka iyo cunto dhex taalay guriga wuxuu xidhay dareyskii ciidanka sidoo kalena wuxuu qaatay cuntadii wuxuuna go'aansaday inuu sida ugu dhaqsaa badan uga fogaado xabsigan mar walbana wuxuu sheegi jiray saaxiibkiisii lagu magacaabayay Barak in haddii aad awooddo inaad ka baxsato xabsigan aanad joogin waddanka oo sidoo kalena aad ka tagto waddanka dhowr maalmood kadibna waxa uu suurta gashay inuu soo gaadho xadka iska galaan Kuuriya iyo dalka China maadaama nolosha dadka iyo ciidankuba ay iska adag tahay gudaha dalka Kuuriyada Waqooyina wuxuu ku qanciyay ilaaladii joogtay halkaas inuu tagayo dalka China isagoo wax ka siiyay cuntadii uu sitay sidoo kalena isaga dhigay askari ka mid ah ciidanka dalka maadaama uu xidhnaa dareyskii ciidanka sidaas darteedna waxa uu ogolaadeen ilaaladii inuu baxo oo ka baxo waddanka markana waxa uu wadeeshay inuu sameeyo mustaxiilkii ama arrinkii aan caqligalka ahayn isagoo ku guuleystay inuu ka baxsado mid ka mid ah xabsiyada ugu ilaalada adag dalka Kuuriyada Waqooyi kadibna ka baxsada isla waddankii laftarkiisii markii uu galay dalka China wuxuu ka shaqaystay halkaas muddo halkaasna wuxuu kula kulmay mid ka mid ah saxafiyiintii joogtay halkaas wuxuuna uga warramay dhammaan sheekadiisii iyo wax walba oo ku soo dhacay markii la baahiyay sheekadiisina waxa looga yeedhay oo laga soo dhaweeyay dalka Kuuriyada Koonfureed waxaana lagu bilaabay baaritaan dheer si loo xaqiijiyo inaanu ninkani ahayn askari basaas oo ay soo dirsadeen Kuuriyada Waqooyi iyadoo baaritaan dheer kadibna ay siiyeen dhalasho iyo deganaansho inuu deganaan karo dalka Kuuriyada Koonfureed laakiin kuma dheeraan sii jooga halkan waxaana soo dalbatay dawladda Mareykanka in la keeno waddankooda isagoo halkaasna kula kulmay mid ka mid ah saxafiyiinta Mareykanka oo lagu magacaabo Balan Hardan ninkan saxafigaana wuxuu soo bandhigay Shin inuu ka qoro buug sheekadiisa iyo wixii uu soo joogay oo dhan dabcan waxayna bilaabeen inay ka wada shaqeeyaan qorista buuggaas waxayna soo saareen buuggii ugu horreeyay ay kaga hadlayeen xabsiyada Kuuriyada Waqooyi iyo waxyaabaha ka dhaca gudahooda bishii March ee sanadkii 2012 buuggaas oo lagu magacaabo Escape from Camp 14 buuggoodaasina wuxuu helay taageero aad u weyn magaciisana wuxuu ugu dhex faafay gudaha dalka Mareykanka qaab aad u weyn si kastaba haatee waxay gaadhay hantida Shin uu isagu iska leeyahay ugu yaraan $5 milyan marka lagu leeyahay daawada weliga harajo dhigin waa sidan oo kale bal la sawiran nin ku dhex xidhnaa xabsi ku yaala gudaha Kuuriyada Waqooyi oo hadiiba uu halkaas nolol ka dhexlo ay ahayd arrin aad u weyn sabab u noqday dilka hooyadii iyo walaalkii waxa aqoon aan baran oo ahaa qof jaahila ayaa wuxuu qaatay go'aankaas wuxuuna ka faa'iidaystay fursadii taalay hortiisa noloshiisina waxay ku dhamaatay oo ay ku dambeysay dhinaca wanaagga sidaasna wuxuu ku noqday Shin maxbuuska kaliya awooday inuu ka baxsado xabsi ku yaala gudaha dalka Kuuriyada Waqooyi intaas aynu ku eegahay daawadayaal muuqaalkeena maanta hayloban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar haddaad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub waad mahadsantahay